waxaanu maanta goor dhaweyd ka soo baxnay oo soo gabagabaynay shirkii golaha wasiirada oo ah kii u horeeyay intii ay dhamaatay bishii barakaysneed ee Ramadaan iyo ciidii ka bacdi guud ahaan hawlaha habsami u socodka dawladdu waxay u socdaan sidii loogu talagalay waxaan maanta halkan u soo holanay inaanu laba qodob la wadaagno bulshooyinka Soomaaliyeed taasoo ah arrimihii lagaga dooday golaha wasiirada waa arinta dagaalka iyo colaadaha ka bilaabmay dalka inuu walaalahanahay Suudaan iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed halka ku sugan iyo dawladdu waxay ka qabatay kana qabanayso marka u horeysa waxaynu dhammaan dawladahan iyo dad ahaanba u duceynaynaa walaalaheen reer Suudaan oo in badan dadka Soomaaliyeed waxtarna u lahaa iyo qaranka Soomaaliyeedba inuu Ilaahay ka soo samata bixiyo colaada dalkoodii ka dilaacday annaga ayaa garan karna qaran burburay iyo dhibta ka dhalan karta waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u sahlo oo ay wada hadal iyo wada xaajood iyo isu tanaasul ku dhameeyaan xaaladda hadda cakiran dalkoodana samata bixiyaan inta ka sokow sida aad la wada socotaan walaalayaal waxa weeye dad Soomaaliyeed oo tiro laxad leh ayaa ku sugan dalka Suudaan u badan arday Soomaaliyeed baac mushtari iyo dad muwaadiniin ah oo in badan halka joogay tirada dadka Soomaaliyeed ee sharciga ku leh dalka Suudaan waxa lagu qiyaasaa markii aan warsanay wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirada ka howlgala waxa lagu qiyaasaa ilaa 2600 tiro u dhow inay sharci ku lahaayeen dalka Suudaan waxa inta dheer ilaa 100 kale waxaan leeyahay 1000 qof oo kale inay ku sugan yihiin ayaa la qiyaasaa Suudaan oo duruufo kala duwan ay ku joogaan qaarkoodna ay musaafiriin yihiin sida aad ogsoontihiin dadaalo kala duwan ayay fidinayeen hay'adaha dawliga ee Soomaaliyeed laga soo bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda hay'adda Sodma ergeyga gaarka ah ee madaxweynuhu uu magacaabay arrimaha dib u soo celinta dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku ildaran ilaa hadda waxa si joogto ah uga howlgelaya horta dawladdu waxay magacawday sida aad ogsoontihiin guddi ka kooban 12 xubnood oo ka kooban wasaaradaha kala duwan ee hawlahan siyaabaha khaaska ah ay u saameynayso sida wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga arrimaha gudaha caafimaadka wasaarado noocaas oo ilaa tobaneeye ah iyo ergeyga gaarka ah arrimahan u qaabilsan ayaa guddi loo aasaasay guddidaas iyo hay'adaha hoostaga shaqo weyn ayay hayeen muddadii colaadan ay bilaabantayba waxa si joogto ah uga howlgala xuduudaha Suudaan ay la leedahay Itoobiya mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda safaaradda Soomaaliya ee Itoobiya oo halkaas ku soo dhaweeya lana qabta intii tamartooda wax walba la qaban karayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xuduudda timaada waxa sidoo kale iyana heegan ku jira oo xuduudahana jooga shaqana ka haya sida ay u samata bixin lahayn muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo qaxaya dalka Suudaan mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adaha kale dawladda ee dalka South Sudan safiirada howlwadeennada kala duwan ee safaaradahaas waxay si joogto ah habeen iyo maalin uga shaqeynayaan sida ay ummadda Soomaaliyeed ee colaadaas ay saameysay ugu gurman lahaayeen dalkoodana lagu soo guriyo xilinaha waxa xusid mudan ilaa 500 iyo 600 in u dhaxaysa oo Soomaaliyeed inay ilaa hadda yimaadeen xuduudda Itoobiya halkaasna loogu adeegayo oo duruufta adag loogu shaqeynayo lagana shaqeynayo sida ay dalka ugu soo noqon lahaayeen in 170 ilaa 200 ku dhowna waxay u gudbeen xagga South Sudan
iyana waxa laga shaqeynaya sidii ay geyiga u iman lahaayeen dadyow baa jira iyana laga soo daabulay South Sudan oo la keenay Kenya ka bacdina halkan la keenay oo aan aad uga mahad celinayno mas'uuliyiinta dawladda Kenya khaasatan wasiir aadan ducaale oo arintaas run ahaantii gurmadka u fidiyay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo iyagu dalkaba soo gaadhay ilaa 19 muwaadin oo dalka gudihiisa yimi qiyaasta dhowrka kun ah ee dadka Soomaaliyeed ee ku noolaa Suudaan dawladdu waxay ku dadaalaysaa iyadoo kaashanaysa hay'adaheeda kala duwan iyadoo kaashanaysa bulshooyinka Soomaaliyeed ganacsatada in dadkaas la soo guriyo celiyo oo gurmad loo fidiyo xarun ayay samaysteen ay ka howlgeli doonaan call center baa la sameeyay number dadku ay soo wacaan duruuf adag weeye daryeel bay dadku u baahan yihiin dumar baa ku jira iyo hablo wax baranayay caruura ku jira dad xanuunsanaya ku jiri kara waa sababta wasaaradaha kala duwan la isugu daray halka marka gudidaas ayaanu filaynaa inay arintaas ka soo dhalaasho dadka Soomaaliyeedna loo gurmado qodobka labaad ee isna ugu weynaa golaha wasiirada maanta aanu ka hadalnay waxa weeye in la bogaadiyo hay'adaha amniga guud ahaan ciidamada qalabka sida kuwa khawaarijta kula dagaalamaya aagaga hore gobolada sida Galmudug Hirshabeelle Jubbaland Koonfur Galbeed dhammaan gobolada oo hadiya habeen naftooda u huraya dalkan iyo dadkan sidoo loo samata bixin lahaa cadawgana looga ciribtiri lahaa waxa iyana si gaar ah loo bogaadinaya ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ee ka shaqeeya gobolka Banaadir magaalada Muqdisho oo bishii Ramadaan iyo ayaamahan dambe dadaal iyo juhdi fara badan geliyay sidii amniga loo sugi lahaa culaysadii kala duwanaa ee amniga jirayna loo suulin lahaa haday noqoto xagga ciyaalo weerada iyo dhalinyarada maandooriyaasha amni xumada oo ay guul weyn ka soo hooyeen guul iyo gobonimo ayaan u rajaynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaanu faraynaa walaalaha Soomaaliyeed in qof walba intii tamartii ah uu u gurmado waxna taro qofka Soomaaliga walaalkii ah meel kale ku tabaalaysan oo waajib guud in wada saaran dawladuna way u heelan tahay heeganna way ugu jirtaa wayna ku hawlan tahay sidii ay muwaadiniinta ugu gurman lahaayeen guddidaana waxa hogaamiye u ah wasiirka arrimaha dibadda oo hagaya si joogto ah baanu dadka Soomaaliyeed wala wadaagi doonaa waxa qabsoomay iyo dadku si u soo guriyo noqonayaan xogna uga heli doona una la wadaagi doonaa dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan iyo meelaha ay tagi doonaan iyo sida dalka loogu soo guriyo noqon doono aad baan idin salaamaya